السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين السلام هيا صوماليين ميل والبعض عالمك هذا قلنا شين وأقويها أحمد شاربو عن ضلي أو إذن الله كسر هذا شارب الشو channel مر والبعض ميل والبعض أجوكتان لما تينا وحني رجينا هيا عافمات إنات إيغوارتان إيو برواخو إيو بش شارب الشو هذا كل حرنت هاي جنبريلك فرو أو سبسكرايب كسارو يا لايكتا سمر والبا قد نرسع عتيد بإذن الله الكريم ما تي بيشو ولا واتني السجال بيش السديلات لبضل كون يا لباتنكا ولا مال سبتئة وحنا ما كان هذا الله ما تي عدي إلى إدمه بيش عالمك ومرلو جوان كجاريسة درشوين كدرك الصومالية إيو سياسة الصومالية halka ay u jihaysanayso wala soconayo beesha caalamku ayada dhaqaalaha Soomaaliya bixisa wayna ku daashay sababtoo ah siyaasadda fadhiidka ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa niyajab weyn wuxuu ku keenay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo dhaqaalaha ugu badan ku bixisa dib u yeelidda haykalkii dowladnimo ee Soomaaliya lacagaha amisom ku baxa ama ciidamada 20 kun gaaraya ee dalka jooga Muqdisho Beledweyne Kismaayo Baydhabo Jamaame meel walba adiga Soomaaliya ka tirsan jooga dhaqaalahooda waxa bixiya beesha caalamka boqolkiiba 90 dhaqaalaha iyo budgetka dawladda ku shaqeysana waxa bixiya beesha caalamka marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fursadda ugu dambaysa uu haysto shirkii Luusamareeb 3 waxa weeye shirka wadatashiga ah ee hadda la isku imaanayo caasimadda dalka ee Muqdisho shirkaas oo qaybihii ka maqnaa shirkii Luusamareeb 3 ee Puntland iyo Jubaland ay ka soo qayb gali doonaan ayna cadeeyeen in ay imaanayaan oo shirka ka soo qayb galiyaan haddii marka shirkaasi is-afgarad weyn laga gaari waayo oo Soomaalidu ay ku heshiin weydo oo maamul goboleedyada iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku heshiin waayaan asaguna ra'iisul wasaare maadaama soddonkii maalmeed uu haystay in wasaare ku soo magacaabo oo ka sii dhamaanayo beesha caalamku markaa iyada ayaa soo jeedinaysa oo yeerinaysa wax walba oo lagu hagayo siyaasadda iyo doorashooyinka curdunka ah ee dimuqraadiyadda curdunka ah ee Soomaaliya ka jirtay oo ahayd rajada lagu nool yahay 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo sababta marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabi laayahay ra'iisul wasaare waa maxay taasaa shacabka Soomaaliyeed isweydiinayaan iyo beesha caalamka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma uusan waayin 30 cisho oo ka dhamaaday ilaa iyo maalintii qeyr uu xafiiska ka horeeyay oo sida sharci darrada ah lagu riday ma uusan weynin ra'iisul wasaare oo soo magacaabo oo dalka Soomaaliya haga oo ka shaqeeya doorashooyinka iyo muddada yar ee bilaha ay kooban ee u haray mandatka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu soo xul lahaa balse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha uu rabo ma ahan ra'iisul wasaaraha dadkoo dhan ay sugayaan wuxuu rabaa ra'iisul wasaare asagu u yeeriyo ra'iisul wasaare oo kac oo fariiso yiraahdo waxaan saxiix uu yiraahdo ciidan col noqo ciidan hal weeraro saa waxa loo kala qaybiyo qarashaadka dawladda hal ugu bixiyo maxaa la yiraahdaa isha dacaayad iyo maxaa la yiraahdaa wadaniyiinta xoogagga wadaniyiinta iyo waxaas iyo dad dacaayad raqiis u faafiyo dawladda iyo waxaas buu ka dawareegaa marka waxa weeye wuxuu raadinayo waa ra'iisul wasaare asagu uu soo xusho oo ku soo xusho aqoon iyo karti ma ahane aniga daacad mayta siyaasadana rajo inaad kala hayn marka ra'iisul wasaaraha qaabku ku raadinayo waa noocaas marka Soomaali lagama weyn ama dadka beesha hawiyaha ee 4.5 u leh ra'iisul wasaaraha iyagu markii awood qaybsiga ay noqoto waxa ku jira 100,000 oo mutacallimiin ah oo aqoon u leh oo hogaamin kara jagada ra'iisul wasaaraha iyo dalka siyaasadda hadda lagu hogaaminayo laakiin Farmaajo rag badan buu la kulmay oo aqoon yahano ah oo beesha hawiyaha ka soo jeeda laakiin way u noqon weysay sababtoo ah niman yes ma noqon kara ma ahan
nin walba markay shireen sida xogta ku hayno barnaamijka siyaasadda u soo bandhigay iyo qaabka doorashooyinku dhacayaan asaguna waa ku qanci waayay waxa way marka madaxweyne waxa leenahay oo u baaqaynaa farmaajo madaxweyne kullayba dib lagu soo dooran maayo Soomaalina way ka dharagtay cid dambe oo soo dooranaysaana ma jirto ee waxa leenahay doorashooyinka qabo ra'iisul wasaarena soo magacaabo kula shaqeeya nooc walba ha noqdo waxaan kale oo hadda dhacaya doorashadii baarlamaanka iyo Hirshabeelle ayaa soo dhow odayaashii dhaqanka hadda waxa lagu ururinayaa Jowhar halkaas oo ay qayb gali doonaan shirka soo xulidda odayaasha Hirshabeelle ka socda ee dhaqanka baarlamaanka cusub ee la soo xulayo maamul goboleedka Hirshabeelle ayadoo 18 iyo 19 bisha Oktoobar ay ku beegan tahay markii la dooran lahaa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle oo jagada kala wareegi lahaa ama dib ugu soo laaban lahaa Maxamed Cabdi Waare marka waxaan ugu baaqaynaa dadka reer Hirshabeelle in ay si deganaan ah iyo jawi degan odayaasha soo xulaan oo ay soo xulaan xildhibaano karti u leh shaqada iyo waxa ay qabanayaan iska soo xul ma ahan qofka lacag ka qaada ma ahan waa ognahay odayaashu inay lacag qaadanayaan laakiin waxaan leenahay odayaasha xildhibaanada ha lagu soo xulo wax u qalba dadka Hirshabeelle xildhibaan u shaqeeya xildhibaan noqda mid aqoon ku salaysan tahay maskax furnaan la socon karana hadda siyaasaddu meesha ay marayso iyo deegaanku ka socdo sidii uu ku horumarin lahaa بريتو أقرأ ورسوهستا وغياشا صوحنا الدولة حلبانا هيرشبال وحا وشيغيا بريتو أقرأ ورسوهستا حداد العقادة تيد العقدة سوا حاران وقف مناسب كو أحين أد كنتيد كرسيغا باشا أدو أد كدلتي مركا إن شاء الله إن صوحنا حلبانا هيرشبال دق دق لنو صوحنا ولما أنا حقولت لنا محمد عبد واري مدحوينها واري هيرشبال واني مسكح فرون معقول أقويها أفتهن إن شاء الله بإذن الله كريم دب أصلا كرسي لو جسوا عليه أكتوبر سالية تون كذا أم سدية تون كذا ترشدا مدحوينها هيرشبال هالكاسي كدع الدولة أنت سمعت برهان مسكين كوجي هاي إن شاء الله وراكم كروبا صوص على وسياسة الصومالية كوساب سن يبيش عالم كسياسة الصومالية كوجهن جانل كركمو وهلكا هنقضوا كمبلال كدارو سبسكرايب نصارو سي أديو جوجل فديو كمبيوتر كاي موبايل كاي aad mar walba aan soo galno horay uu kaaga soo dhaco wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa aqoonyahan axmed shaaribo oo idin leh maalintu ha idin wacnaato meel walba oo Soomaali weyn caalamka aad ka joogta